السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال هبين وعن او وناكسن ملكستو اجوكتان iyo waliba si walbo muuqaalkeena uu idin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijkeeni caawa iyo ciyaaraha oo aan ku soo qaadan doono qodobo aad u xiiso badan sida kooxda Manchester City oo mar kale cadeysay inay diyaar u tahay horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska iyo waliba sidoo kale laba sababood oo sabab u noqon kara in Barcelona ay gabi ahaanba ku guuleysan wayso saxiixa laacibka reer Brazil ee Neymar Iyo sidoo kale barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan inta uu hawada ka baxayo David Luiz oo ugu dambeyntii sheegay in uu yimid kooxda Arsenal in uu ku hogaamiyo horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan oo waxa kale oo qayb ka noqon doona xaaladda macallin Ole Gunnar Solskjaer oo aanan wacnayn ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka hana naga iloobin inaad like saarto muuqaalkan sidoo kale share garay oo la wadaag asxaabtaada mahadsanid halkani waa Tollito channel ugu horeyn aynu ku hormarnay madaafiic culus ayaa xalay kaga soo dhacay kooxda Manchester City xagga iyo waliba gobolka Maarisaydka qaasatan magaalada Liverpool iyo caradii Amber Road halkaasi oo si wacan oo wanaagsan loogu jijiiday kooxda Arsenal oo marti ku noqotay wixii ku dhacayna Arsenal waa wax ilaa iyo haatan dunida oo dhan ay wada hadal hayso laakiin Manchester City oo ka falcelinaysa ayaa iyadana buugag cusub waxay ugu furtay istaadiyaheeda Tollito kooxda Bournemouth oo ay marti u ahaayeen kulan ka tirsan toddobaadkii saddexaad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxa ay ku dhigtay Bournemouth kooxda Manchester City-na waxay ahaayeen wax cajaa'ib leh oo cadeynaya in City ay tahay wali koox u diyaarsan in markeedii saddexaad ay noqoto horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska waliba shabaqa kooxda Bournemouth waxaba codkii ugu horeeyay ku shubtay min daqiiqadii 15aad ee ciyaarta Sergio Kun Aguero oo ka faa'iideystay Banoni uu si qurux badan u farsameeyay Kevin De Bruyne making his way forward to De Bruyne and didn't hit it. Aguero did. It's 1-0 to Manchester City. halkaasi loogama herin kooxdii martida loo ahaa ee Bournemouth waxaana dhirbaaxintii labaad dhulka la dhigay laacibka reer England ee Raheem Sterling oo maalmahan noqday xidig dirisla ah goolasha David Silva ahead of him, threading through towards Raheem Sterling. It's been a quiet afternoon for him, but he only wariyaqi reer City gees kastana waxay ahaayeen kuwa ku gacan sareeyay ciyaartii ka dhacaysay istaadiyaha Tollito oo ay leedahay kooxda Bournemouth nasiinada qaybta koobaad waxa lagu kala tagay City oo ku horkacaysa 2 gool iyo waxba laakiin marka la isku soo laabtay qaybtii labaad waxa cashir lama iloobaana u dhigay goolhaya Ederson Harry Wilson oo kubadlaad xur ah oo loo dhigay iyadoo dhulka dhicin dhex dhigay shabaqadii uu waardiyaha ka ahaa waxaana ay ahayd gool cajaa'ib leh decent attempt, more than a decent attempt. A stunning goal from Harry Wilson. Manchester City oo dhinac kasteetaba ahayd koox u diyaarsan inay guul ka gaadho kooxda Bournemouth ayaa waxa goolkii saddexaad u dhaliyay gool magafahoodii reer Argentina ee Sergio Kun Aguero oo halkaasina ka xaqiijistay goolkiisii 400aad ee xirfadiisa kubadda cagta David Silva takes over. Tricky feed from here, and Sergio Aguero's there to finish it off and potentially finish Bournemouth off as well. 3 gool iyo gool ayayna ku badisay kooxda Manchester City walina waxay diyaar u tahay inay ka mid noqoto loolanka iyo tartanka loogu jiro horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska waana sanad kale oo loo saadaalinayo waxaana tartan adag ay kala kulmi doontaa kooxda ka dhisan gobolka Maarisaydka iyo magaalada Liverpool qaasatan garoonkii Amber Road ee Liverpool dhinaca kale inkastoo weli ay la eedaarayaan jamaahiirta Arsenal saddexdii daqar ee ka soo gaadhay caradii Amber Road iyo waliba kooxda Liverpool oo xalay ku cajintay garoonkeeda ayaa haddana waxaa hadlay laacibkii qaladka rigoorada u soo hooyay ee David Luiz isagoo niyadda u dejinaya jamaahiirta Arsenalna waxa uu sheegay in xitaa xilli ciyaareedkan uu Arsenal u yimid sidii uu u noqon lahaa mid ku hogaamiya ku guuleysiga horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska David Luiz oo ka sheekeynayay arrimahaasna waxa uu yiri
mar waliba waxaa jiri doona niyajab laakiin sidoo kale waa in aad maskax badnaataa waxaan qabannay shaqo fiican oo aan ku dhalin karnay 2 ama 3 gool ka hor inta aysan goolka naga dhalin kooxda Liverpool mar waliba way adag tahay in lagu ciyaaro Anfield mana jirto koox ay u sahlan tahay in 3 dhibcood halkaasi ay ka soo qaadato ayuu yiri David Luiz waxaana intaasi uu ku sii daray kooxda Arsenal waxay leedahay tayo qaab ciyaareed fiican waa koox ay joogaan xidigo tayo leh kubadda cagta waxa muhiim ah dhamaadka laakiin bilowga lama qiimeeyo waxaan isku dayi doonaa inaan u dagaalano dhamaadka waxaan halkan u imid in Arsenal aan kula guulaysto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan iyo waliba koobab kale ayuu yiri David Luiz oo ilaa iyo haatan dhirbaxshitii ka soo gaartay kooxda Liverpool jamaahiirta Arsenal ay la jaraynayaan isaguna haatan wuxuuba kicinayaa xifaaltan iyo tartan horle kaasi oo u muujinayo jamaahiirta Arsenal in isaguba u yimid garoonka Emirates Stadium sidii Arsenal uu ugu hogaamin lahaa ku guulaysiga koobab badan uu ka mid yahay horyaalka ugu xamaasada badan qaaradda Yurub kaasi oo noqonaya Premier League riyadan David Luiz ma kula tahay inay tahay mid saxan bal aragtidaada noogu reeb xagga commentiga oo misleedahay David Luiz Arsenal wuxuu ku hogaamin karaa horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska karogo laba sar tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa shaaca ka qaaday in waqti xaadirka kan uu ka walwalsan yahay xaaladda istuuturis ee laacibka lagu magacaabo Daniel James ka gadal markii 2 kulan oo xiriir ah loo taagay calaamada digniinta ah maadaama uu istuuray Ole Gunnar oo ka sheekeynayna waxa uu leeyahay waxa 100% jirka xiriir ama taabasho uu difaaca Crystal Palace taabtay Daniel James haatan wuxuu 2 kulan kaar digniin ah uu ku qaatay istuuris inkastoo 2 jeer la taabtay isaga ka hor inta uusan dhicin waa inaan iraahdaa waa mid nasiib xun marka la eego dhankaas labada kaar ee digniinta ah ma ahayn mid mudan in loo taago waa aan ka walwalsanahay inuu sumcad ku yeesho istuurista sababtoo ah ma ahan xidig lagu garanayo istuurista Daniel James ayuu yiri macallin Ole Gunnar Solskjaer oo la walwalsan xaaladda waqti xaadirka kan soo wajahday laacibkiisa dhawangalka ah ee Daniel James oona ah xidig da'yar ah oo mustaqbal wanaagsan ku leh xagga kooxda Manchester United laakiin bari ahaanba wuxuu caan ku noqday haddii la taabto inuu istuuro iska badaa inuu ka sheekeeyo Ole Gunnar Solskjaer sumcadda Daniel James isagu ayaaba haatan halka loo soo jiro uusan ogeyn oo wuxuu kulan degdeg ah la qaatay ku-xigeenka gudoomiyaha ee kooxda Manchester United Edward Ward waxaana si cad loogu sheegay in looga baahan yahay in natiijo wacan oo wanaagsan isla markaana ay ku raaxaystaan jamaahiirta United-ka in looga baahan yahay haddii kaleetana waxa dhici doonta in gabi ahaanba laga xayuubiyo xilka macallinnimo uu u hayo kooxda Manchester United oo United ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay waxay noqotay koox iska laata caleesh ah oo xaaladeedu ma wacna waqti xaadirka kana wararka waxay tilmaamayaan in Edward Ward iyo sidoo kale Ole Gunnar Solskjaer kulan degdeg ah ay yeesheen isla markaana ay ka wada hadleen mustaqbalkiisa kooxda Manchester United oo United ayaa laga yaabaa in ay ka daldoorasato Ole Gunnar Solskjaer haddii uu noqdo macallin dirisla ah guuldarooyinka ugu dambeyntiina labadan sabab darteed ayay kooxda Barcelona ula soo wareegi karin saxiixa laacibka reer Brazil ee Neymar Iyo oo sababta koobaad ay wargeyska Mundo Deportivo ee ka soo baxa cariga Spain waxa uu ku sheegay in kooxda PSG aysan doonayn in Barcelona ay ka iibiso taasi beddelkeeda PSG ayaa doonaysa in Neymar ay siiso kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid ee Real iyo PSG-na waxa ka dhaxeeya ilaaqaad wacan oo wanaagsan oo waa xumaaday ilaaqaadka ka dhaxeeya kooxaha PSG iyo Barcelona sababtaasi waa midda ugu horeysa ee Barcelona ka hor istaagi karta in dib ay u soo celiso halyaygoodii ka farabaxsaday 2 sano ka hor sababta labaadna waxa lagu sheegay inay noqonayso lacagta waalida ah ee mushaar ahaan u dalbanayo laacibka reer Brazil ee Neymar Iyo taasina waxay noqonaysaa sida wararka ay tilmaamayaan aqabad kale oo ka hor istaagi karta in kooxda Barcelona sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula soo wareegto Neymar Iyo oo labadaasi qorshe darteed ayaa macquul ah in gabi ahaanba wax waliba ay ku fashilmaan
guud ahaan barnaamijkan ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah maxamed cabdirasaaq tolman saaxiibayaal wanaga inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga